kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada channelka maalmaha fadlan subscribe saar haddii tahay markii kugu horeysay si ay ku soo gaaraan muuqaalada halkan soo gelina ku soo dhawaada qiso cajiib ah oo ku saabsan dhowrsanaantiisii buu alla uga badbaadiyay in uu cudurka HIV ku dhaco. haddaba qisadan waxaa ka sheekeeyay sheekha daaciga ahaa ee Sheekh Dr. Maxamed Cariif wuxuuna ku bilaabay sidaan: fasaxii waxbarashada markii la gaaray ayay isku waafaqeen inay u fasax tagaan mid ka mid ah wadamada reer Yurub si ay fasaxooda ugu soo qaataan halkaas, iyagoo ka kooban 3 wiil oo dhalinyaro ah saaxiibo ah u dhashay wadan ka mid ah wadamada Khaliijka. haddaba dalkii ay rabeen ayay tageen, waxayna kireysteen hotel ka mid ah hoteelada magaalada ugu qaalisan. kadib hal habeen markay seexdeen ayay go'aansadeen in ay tumasho tagaan, hase yeeshee wiil ka mid ah wiilasha oo ahaa wiil lagu soo tarbiyay alla ka cabsiga ayaa ku diiday fikirkaasi, isagoo leh walaalayaal Ilaahay ka baqa, masaajidka aynu aadno, diinta aan soo baranno oo inaga dhaafan xumaanta aad sheegaysaan. balse labadii kale way ka diideen hadalkiisa, iyagoo dhahayo reer baadiye ayaa tahay oo waa dambaysaa, naga har adiga. wayna iskaga tageen wiilkii, xumaan iyo qamro iyo wax walba way soo sameeyeen. haddaba markay soo laaba rabeen ayay isweydiiyeen haddii aan u tagno inaga oo soo tumanay isna uusan soo tumanin wuuna ceebayn doonaa markii aan wadankii u laabanno, maxaan ku sameynaa saaxiibkeen? mid ka mid ah ayaa yidhi aan la heshiino naag aan la tumanay oo ahayd mid ka mid ah naagii u quruxda badnaa ee habeenkaas lala tuntay, kuna dhahno ninkaas naga afgaro oo guriga ayaana kugu geynaynaa, hadduu xumaantaas kula sameeyana waxaad leedahay lacagtaas intaas ah ama lacag intaas tiradeedu ay dhan tahay. wayna ka yeeshay arrinkaas loo sheegay gabadhii faasiqada ahayd ee wiilashan ay la soo tunteen. intaa kadib gurigii ayay yimaadeen xilli dambe oo habeenkii ah, albaabka ayayna ku garaaceen wiilkii oo iska hurda, maadaama ay tahay waqti dambe ayaana ka furay albaabkii qolkiisa. kadib gabadhii ayay u geliyeen, kadibna kor ayay ugu xireen qolka si uusan uga soo bixin, waxayna u dardaarmeen naagtii in ay adeegsato wado kasta oo suurtagal ah si uu ugu dhaco xumaanta ay sameeyeen mid la mid ah. run ahaantii way samaysay wado kasta oo suurtagal ah, hase yeeshee way ku guuldareysatay wiilka dhalinyarada ahaa ee qalbigiisu iimaanka Ilaahay ka buuxiyay. markuu iska kari waayay naagtii ayuu ku dhahay, wax ma kuu sheegaa naag yahay? haa ayay tiri. wuxuu ku yidhi aniga waxaan qabaa cudurka HIV/AIDS, wuxuuna sidaa u yidhi bal in ay ka cabsato cudurkaasi kadibna ugu joogsato xumaanta. laakiin iyada ayaa ka sii dartay oo waxay ku tiri imisan ayuu ku hayaa cudurkan HIV/AIDS? wuxuu ku yidhi sanad ayuu hayaa. waxay ugu jawaabtay aniga 3 sano ayuu hayaa, dhib ma lahan ee kaalay aboowe. kadib markii uu maqlay ayuu aad u naxay, kolkaas ayuu ku dhawaaqay wariyaada isagoo la hadlaya saaxiibadiisii guriga ku xiray. markay dhawqiisii ay ka yaabeen ayay albaabkii ka fureen, waxayna weydiiyeen waxa helay. wuxuuna ku yiri war naagtan miyaad u wada tagteen labadiina oo la soo tumateen? haa ayay yiraahdeen. markaasuu yiri haddaba AIDS ayay qabtaa la socda. naxdin ayay la dhiman gaareen, habeenkii oo idil ma aysan seexanin. kadib dhakhtar ay aadeen, baaritaan lagu sameeyay, kadibna waxaa loo sheegay inay qabaan cudurka HIV/AIDS. Ilaahay ha naga koriye. markaasuu yiri wiilkii waxaan soo xasuustay hadalkii nabiga nabadgeli in xariis korkiisa ahaatee, ittaqullah haythuma kunta, meel kasta oo aad joogto Allah ka baq. haddaba qisadan waxay xasuusinaysaa meel walba aad joogtid inaad Ilaahay ka cabsatid oo aad aamintid oo aad raacdid xadiiskan ah ittaqullah haythuma kunta, sida uu yiri nabigeena nabadgeli in xariis korkiisa ahaatee. wiilkan wuxuu uga badbaaday cudurka HIV/AIDS cabsida Allah, halka wiilashii kalena oo iloobay cabsidii Ilaahay oo ku dhacay cudurkii HIV/AIDS oo ah cudur dilay ah.